سلام كبعدي dadka digili marafle marbadna maayta kala hadalni madaxda degmada mayna areena hadalkii odayaasha jeediyeen wuxuu ku saabsanaa muxuu ahaa inay dib isu weydiiyaan laakiin maanta waxaan isku riixaynaa inayna fahmaan hoogaayal tooda aan raacno waxaan ka bilaabayaa digili marafle maantay waxay u tahay unug aawo dhashay horay ka socday dhaangaaray bay u tahay waxaan u leeyahay waxaan soo joogay aniga gaalkaayo degmada gaalkaayo ayadoo tahay kuma tilmaami karo caasimad bay noqotay ayadoo meel degmo bilow ah baan soo joogay ilaa isaacadaan aan ku noola dhagahayga badan waxay ku soo dhaceen ayna ku dhici jireen dadkan iska socda oo iska yaacaya maalin walba gaari ka soo degahaya oo dukaamo leeyihiin yaa lagula xisaabtamaa yaa la weydiiyaa walaalayaal weydiintu waxay ka maqneed madaxda bay culayskaas aad u saarnaa laakiin nabadoonnada waa isku warqabnay waxyaalo hoosaa degmada dhacdooyin gaagaaban ah waa ku kulma jirnay waa isfahmi jirnay waa la xisaabtama jirnay laakiin madaxda markay noqoto ay howlgal ay galahayaan ama ay leeyihiin ammaankan sugayna gacanta markay qofka digili mirafle ah la soo qabto wuxuu dhahayaa warya xagee ka socotaa kaasuu dhahayaa raxaween baan ahay war raxaween baan ahay waan ugu badateeye dadka yaa la xiriir xisaabtamahaya yaa looga tegahaya aad baan ugu faraxsanahay waqti badan baan soo gelinay maasha allah waxaa bilow noo ahaa dowladda galmudug markay la dhisahayay waxaa la yidhi digili marafle ku nool mudug iyo galgaduud madaxda qayb baa laga siinahaya anigoo gaalkacay joogna 4 qof baa israaceen waxay tageen dhuusmareeb ayagoo raba madaxtinimo inay qayb ka qaataan waxaa la yidhi wareedhe albaabkan laskama soo galee suldaan baa lagu soo galaa suldaankiina meeye waxay sameeyeen ayagoo tubaneeye ah baa suldaan doorteen suldaankii bay geeyeen suldaankii markay geeyeen waxaa la yidhi xildhibaan baad leedihiin kaarkiisa waa kan waxaa la yidhi xildhibaankeena suldaankana ha saxiixo hoosh sidii buu ku galahayaa 4 nin ba dhinac isu fiiriyeen saas dhinacyaha fiiriyeen fursadna way u waayeen inay digili marafle isugu yeeraan ay dhahaan suldaankiina waa kan xildhibaan aan doorano aan isku xulno fursad ay u waayeen markii dambe mas-uuliyiintii suldaankii hayay bay dhaheen lagama fursanahayo waqti baana haya koobkaan inta qof kala cabbi lahaa bal suldaan uu aniga cab loo fadhiiso bilow bay noo tahay maasha allah dowladdii galmudug maasha allah waxaan ka haynaa xildhibaan buuxa matala digili marafle matala maasha allah way ku mahadsan tahay wayna siisa kadib
baltalow dowladdii waxay ka koobneed meheldabaan keliya ka koobneed muwasiiro ma lahayn miya agaasimyaal ma lahayn miya meheldabaanka keliya ka koobneed ma hayno waxaan fariin u diraynaa maanta fursadda annaga ku faa'iidaysanayno waxaan ugu fadhinaa wasiiradii agaasimyaashii madaxweynahan ugu fadhinaa madeeda kale degmada gaalkaayo waxaanu leenahay xaquuq badan baan ku leenahay bal ilaahay idinku dhaashay 28 sanaan degana ilmahay waa gaangeen jaamacad bay dhiganahayaan dhammaantood mas-uuliyiin way shaqo dowladeed way qaban karaan mas-uuliyadeeda way qaadi karaan wantaasoo dhan waa raadinay xoogaa yar gaabis baan ku aragnay waxaa la yidhi degmadii waxay soo dirtay golo deegaan baa la dhisahayaa degmada gaalkaayo golo deegaan baa laga dhisahayaa waxaan nidhi maasha allah xibintii labaad baa idiin soo dhowe bal maantana meesha ku dhowaada waan soo dhowaanay 4 biloodba waxaan ku fadhinay hoteelkan 5 star kursigeeda aan ku fadhinay kafee aan ku cabaynay aan sugaynay warkii ugu horeeyay wasaaradda markay timid waxaa la yidhi waraysi bay samaysay degmada gaalkaayo majority ahaan degmada dadka degan qolooyinka ugu dadka tirada badan waa naqaanaa saad wey yaa ku soo xigaa la yidhi waxaa la yidhi digili maflaa ku soo xiga anaga ma dhihin waxaa la weydiiyey su-aasha digili marfla ma weydiin salaadiintii baa la weydiiyey degmada baa la weydiiyey ayagaa ku jawaabay waxaa la yidhi guddigii markay u tagnay arrintiina noo sheegay diilaana soo gashay oo gambarkaan soo dhawaysanay guddigii baan u tagnay ninkii ugu horeeyay waxaa la yidhi wareedhaha faataxada idiin maraynaaye meeshaan wax kama soo dhawo waa la kala qaybsaday maa dib u laabataan ninkii ugu horeeyay guddigu noogu xilsaarnaa gambarkii koowaad aan ku fadhiisanay waxaan ku yidhi faataxa diidi mayne waan qaadanaye laakiin wasaaradda guddiga hadday tahay waa wasaaradda madaxa meelka badan silaax ma lahana wasaaradda mar noo geey faataxa labaad ha noo martee baan dhahan markii dib faataxadii ka sakow raallinaaga ahaada hoogaa yar waxbaa igu buuxay raalli ahaada maayarkana udurdaar buu subay iya noo dulqaata markii kadib bal wax suga abaar suga waxbaa soo dhow baan idhi yaldiinaa la gashay haddana markii ka dambe waxaan aragnay qolooyinkii maanta qoladaasaa la qaabilahayaa suga berina taasaa la qaabilayaa suga sidaan hoos u fudhinay hoteelka hooska koraan u firi ama baltalo amaa laidin yeeli doonaa waxaa la yidhi meesha ka kaca wasiirkii waa diday wixiina waa la dhameeyey khayr allah idin sii waxaan leenahay xaquuq baan leenahay degeli merefle ah idana usheegmaysin waad og tihiin maamulku wuu og yahay anakana waan ogna waan soo gaabinahayaa aad baan rabay inaan u dul istaago waxaan la dardaarmaynaa maamulka waxaan ka rabnaa maayarka ugu horeeya ee guddoomiyaha midda igu horeysa igu dhegan baan soo hormarinahayaa waxaa laydinka rabaa degmada gaalkaayo xaafad degel iyo merefla iska leh ood ogoysaan oo furaheeda ku wareejisaan baa idinku sugaynaa haddii ilaahay ilmo wax badan baan taabanahay taas baan inaan hoogaa fursad iga baxdaan diidahayay furihii baan sugaynaa oon baadiye ahayn waxba ay sheegeen baadiyahan eegayna ma rabno waxaan rabnaa
degmada gaalkacyo gudaheeda magaalada gudaheed meesha uu habboon digli mirifla uu qaabili karo oo ku fariixda oo ku faani karo oo maayarkan magaca ku yeelanayo weligiis madaxtinimadiisa ugu xasuusinayo baan ku rabnaa intaas aan ka soo koobahaya